باتي قيان زائدة لي هذا حنوما إيها ميلاني في عملها عندنا دورك يو هنلرتي قص كده ويجي حنونوين halkan aan ku suganahay waa kaamka beero oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan Garis Valley waxa ka dhacday dhacdo la yaab leh oo dadka degan kaamka ku beertay cabsi kadib markii haweeney halkan degan afar raga oo hubeysan inta halkan ugu yimaadeen la baxeen odageeda oo goobjoog ka ah kadibna meel aan sidaas ugu fogeen guriga inta geeyeen halkaasi ku kufsadeen gabadha lagu magacaabo Xaawo Cabdiraxiin oo la hadashay telefishinka Somali Cable waxay noo sheegtay ragga falkaasi u geystay inay ku libsanaayeen dareeska tuutaha ee ciidamada dawladda wataan balse wajiga uu u xirnaa isla markaana maaskar wajiga ugu xirnaa guriga ii soo gal guriga markaa ii soo galna haraanti iyo waxaas soo dhuftay qoriga markii guriga soo galna qorigana wuu qabtay qorigii ani ninkay qabtay ninkan waa lagu qabtay anna waa laga qabtay markaan gabadhii soo qabsahaan dhahay gabadhii anoo soo qabsahooyo markaan dusha saan igu jiido dushan waa igu dhuftay feernyaa igu dhuftay yaa qoriga daabkiis ay igu dhuftay saana diracka igu soo qaad markaan meeshaas ay geysay banaan fiig hadda xanuun ay haya dhabarka iyo hurta iyo meelan kafiyaawi malaha xanuunsaan iga haya maba kasta ma sakaraat waybe wajiga ka hiranyi gaarin waa wateen gaari wateen gaariga saan qabsoonaaya jariiriya xunta ee ay dhahay dusha igu dhuftay marji ay qabtay sidii hooshi ay qabteen soonaaya baatigaas ay igu jiri baatigiina ay igu tirtirteen saas waay baati qoyaan zaa'ida leeyahay hadda xanuun ay haya meelan fiican malaha عندنا دورك يو هنلرتي قص كده ويجي حنونوين Samiro oo ah gudoomiyaha kaamka oo la hadashay telefishinka Somali Cable ayaa sheegtay in cabsi xoogan ay la soo daristay dadka kale ee ku nool kaamka waxa lagu dhibaatay maamo Soomaaliyeed oo 8 bilood oo uur leh halkan aan hadda joogno xal niman dablay oo la soo baxeen tuutaha ciidamada dawladda ee wateen afar nin bay ahaayeen waxa la ii sheegay saakan guriga ka soo cararay in 3 nin oo kamid ah ay gabadha farxumeeyeen ninna uu gaariga haayay xal oo dhankaamka ay ku dhex wareegayeen waxaan codsanaynaa hay'adaha nabadgelyada iyo dawladaba in dadka masaakiinta ah ee barakacayaasha ee ku nool meeshan ee dhibaatada badan ku haysato in haddana nafsadooda loo badbaadiyo Maxamed Cumar Abuukar oo ah sayga haweeneydan kufsiga iyo dilka loo geystay oo kamid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba isla markaana goobjoog u ahaa dhacdada oo la hadlay telefishinka Somali Cable ayaa ka sheekeynaya sida ay ula dhaqmeen raggii kufsiga u geystay xaaskiisa oo uur lahayd nimanka la iimaanayeen saadii iimaadeen sagaal saabiin way iimaadeen sagaal saabiin saadii iimaadeen albaabka waa soo garaceen waa lagu soo furay qurbaadkiis baf albaabkiisa adal soo furay waa soo fadhiistay gabartiin waa soo fadhiistay kolku duwa maqashina nimankiina nin hebel ma dhax karin waxaan jira tuuti wajigana masqar way nin hebel oo ma dhax karna mijiro makasno ronat waxa wadadeena oo cad banaankaana u yaalay waxa ku qoyana afar nimood hal shafeer yana 3 ciidan oo tuutaysan 3 ciidan gabadha ilbahan ki kala mid magaasha la meesha oo wiilkan taagan meesha taagnaay wiil kala waxa ay dhaay arso dhaga ana ku tusaa booska ku soo kacay maxay ku sheegeen marka maxay ku sheegeen wal ihad maad ii sheegan ma jirta gabarta banaan jeesan waa ku dhagaalaysan sidoo kale halkan aan ku suganahay waa goob aan sidaas ugu fogeen guriga Xaawo Shariif oo ah gabadha dhacdadan ay ku dhacday isla markaana halkan lagu kufsaday goobtan aan ku suganahay waa halkii ay keeneen raggii soo afduubtay isla markaana iyada oo seegeeda uu ka dhow yahay goobta
halkan ku kufsadeen waa arrin murugo leh runtii qoyskana waa qoys danyar ah waxayna ummadda Soomaaliyeed ka codsadeen in la soo caawiyo isla markaana laga saacido sidii gabadhaasi xaamilada ah loola tacaali lahaa xaaladdeeda caafimaad. Ismaaciil Aadan Bilisa, telefishinka Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.